wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Cali Maxamed iyo dhigiisa dalka Turkiga Hulusi Akar oo wehelinayeen taliyaasha ciidamada labada dal iyo mas'uuliyiin kale ka tirsan dawladda ayaa kormeeray xarunta tababarada ciidanka ee Turkisom kuwaas oo la kulmay saraakiisha iyo howlwadeennada kuliyadan. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa kadib markii dalka ay ka amabaxeen wafdiga uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga Turkigu waxa uu sheegay in wada hadal dhinaca dhismaha ciidanka iyo amniga ay wada qaateen labada dhinac isagoo ku amaanay dawladda Turkigu kaalinta ay kaga jirto dib u dhiska ciidanka Soomaaliya. waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka wada hadalnayna waxay ahaayeen saaxiibtinimada labada dal iyo alaaqaadka wanaagsan oo ka dhaxeeyo labada dal. waxaan ka wada hadalnay maadaama ay ka socdeen wasaaradda gaashaandhigga ay dhigoodana waan anagu ahayn oo waxay ku wada hadalnay sidii isaga kaashan lahayn arrimaha amniga arrimaha ciidanka iyo saan isaga kaashan lahayn dhinacyada quseeya amniga. runtii wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan aad iyo aad historic ah. runtii wafdi xeerkan gaarayo inay soo gaaraan dalka Soomaaliya taasoo aynu tusinayso walaalaheena Turkiga uu hormuudka ugu yahay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan sida ay ugu go'an tahay inay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida ay ugu go'an tahay inay garab istaagaan in Soomaaliya ay dhisato ciidamadeeda qeybaheeda kala duwan. xaruntan lagu tababaro ciidanka xoogga oo la furay 30kii Sebtembar ee sanadkii tagay ayaa waxa hadda ku jira ciidamo tababarku u dhamaaday iyo kuwa hadda uu socdo. ciidamadan ayaa habka tababarkoodu aad uga duwan yahay hanaankii loo tababari jiray ciidamada sanadihii tagay waxaana erayada awaamirta tababarkooda ka mid ah calanka ciidda iyo heeso wadani ah. dhalinyarada halkan lagu tababarayo waxa ay ku muujinayaan sida uga go'an tahay in dalkooda ay u adeegaan. dable xoogga dalka Cabdisamed Maxamed Cabdiraxmaan ka tirsan ururka gargar ka tirsan huruntiisa saddexaad taliska xarunta Turkisom tababar ugu jiro. ma sha Allah waxaan u doortay ciidamada inaan ka mid noqdo gumeysiga iyo wadanka macnaha marxaladaha uu ku sugan yahay dhiigga wax ka qaalisan ma laha nafsadeeda ayaan dalkayga u hibeeyay. dhalinyaradaas waxaan u sheegayaa wadadan hadda ku taagana waa wada fiican inay soo raacaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo sumcaddooda iyo wadankooda inay macnaha kor u nooleystaan. anoo heli karo nolol ka fiican oo qutulyoon fiican leh oo iska hurdi karo oo iska seexan karo markaan arkay wadamada waxa ka jira iyo ummadeena Soomaaliyeed waxa dhibka haysto ayaan waxaan u soo hibeeyay nafsadeedana u soo huray inaan macnaha gumeysiga dalka aan ka saarno. waa kuliyad loogu talagalay in lagu tababaro ciidamada xoogga dalka ee loo diyaarinayo wadanka mustaqbalka dhow. macallimiinta halkan casharada ka bixinaya waxa ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo dawladda Turkiga ay wadankeeda ku soo tababartay kuwaas oo sidaad u jeedaan maanta gudanaya waajibaadkoodii dalka. wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Cali Maxamed iyo dhigiisa dalka Turkiga Hulusi Akar oo wehelinayeen taliyaasha ciidamada labada dal iyo mas'uuliyiin kale ka tirsan dawladda ayaa kormeeray xarunta tababarada ciidanka ee Turkisom kuwaas oo la kulmay saraakiisha iyo howlwadeennada kuliyadan. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa kadib markii dalka ay ka amabaxeen wafdiga uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga Turkigu waxa uu sheegay in wada hadal dhinaca dhismaha ciidanka iyo amniga ay wada qaateen labada dhinac isagoo ku amaanay dawladda Turkigu kaalinta ay kaga jirto dib u dhiska ciidanka Soomaaliya. waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka wada hadalnayna waxay ahaayeen saaxiibtinimada labada dal iyo alaaqaadka wanaagsan oo ka dhaxeeyo labada dal. waxaan ka wada hadalnay maadaama ay ka socdeen wasaaradda gaashaandhigga ay dhigoodana waan anagu ahayn oo waxay ku wada hadalnay sidii isaga kaashan lahayn arrimaha amniga arrimaha ciidanka iyo saan isaga kaashan lahayn dhinacyada quseeya amniga. runtii wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan aad iyo aad historic ah. runtii wafdi xeerkan gaarayo inay soo gaaraan dalka Soomaaliya taasoo aynu tusinayso walaalaheena Turkiga uu hormuudka ugu yahay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan sida ay ugu go'an tahay inay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed
siday ugu go'an tahay inay garab istaagaan in Soomaaliya ay dhisato ciidamadeeda qeybaheeda kala duwan. xaruntan lagu tababaro ciidanka xoogga oo la furay 30kii Sebtembar ee sanadkii tagay ayaa waxa hadda ku jira ciidamo tababarku u dhamaaday iyo kuwa hadda uu socdo. ciidamadan ayaa habka tababarkoodu aad uga duwan yahay hanaankii loo tababari jiray ciidamada sanadihii tagay, waxaana erayada awaamirta tababarkooda ka mid ah calanka, ciidda iyo heesa wadani ah. dhalinyarada halkan lagu tababarayo waxa ay ku muujinayaan sida uga go'an tahay in dalkooda ay u adeegaan. dable xoogga dalka Cabdisamed Maxamed Cabdiraxmaan ka tirsan ururka Gorgor ka tirsan huruntiisa saddexaad taliska xarunta Turkisom tababar ugu jiro. ma sha Allah waxaan u doortay ciidamada inaan ka mid noqdo gumeysiga iyo wadanka macnaha marxaladaha uu ku sugan yahay. dhiigga wax ka qaalisan ma laha, nafsadeeda ayaan dalkayga u hibeeyay. dhalinyaradaas waxaan u sheegayaa wadadan hadda ku taagana waa wada fiican inay soo raacaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo sumcaddooda iyo wadankooda inay macnaha kor u nooleystaan. anoo heli karo nolol ka fiican oo qutulyoon fiican leh oo iska hurdi karo oo iska seexan karo markaan arkay wadamada waxa ka jira iyo ummadeena Soomaaliyeed waxa dhib ka haysto ayaan waxaan u soo hibeeyay nafsadeedana u soo horay inaan macnaha gumeysiga dalka aan ka saarno. waa kuliyad loogu talagalay in lagu tababaro ciidamada xoogga dalka ee loo diyaarinayo wadanka mustaqbalka dhow. macallimiinta halkan casharada ka bixinaya waxa kamid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo dawladda Turkiga ay wadankeeda ku soo tababartay, kuwaas oo sidaad u jeedaan maanta gudanaya waajibaadkoodii dalka. wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Cali Maxamed iyo dhigiisa dalka Turkiga Hulusi Akar oo wehelinayeen taliyaasha ciidamada labada dal iyo mas'uuliyiin kale ka tirsan dawladda ayaa kormeeray xarunta tababarada ciidanka ee Turkisom, kuwaas oo la kulmay saraakiisha iyo howlwadanada kuliyadan. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa kadib markii dalka ay ka ambabaxeen wafdiga uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga Turkigu waxa uu sheegay in wada hadal dhinaca dhismaha ciidanka iyo amniga ay wada qaateen labada dhinac, isagoo ku ammaanay dawladda Turkigu kaalinta ay kaga jirto dib u dhiska ciidanka Soomaaliya. waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka wada hadalnayna waxay ahaayeen saaxiibtinimada labada dal iyo alaaqaadka wanaagsan oo ka dhaxeeyo labada dal. waxaan ka wada hadalnay maadaama ay ka socdeen wasaaradda gaashaandhigga ay dhigoodana waan anagu ahayn oo waxay ku wada hadalnay sidii isaga kaashan lahayn arrimaha amniga, arrimaha ciidanka iyo saan isaga kaashan lahayn dhinacyada quseeya amniga. runtii wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan, aad iyo aad historic ah. runtii wafdi xeerkan gaarayo inay soo gaaraan dalka Soomaaliya, taasoo aynu tusinayso walaalaheena Turkiga uu hormuudka ugu yahay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan sida ay ugu go'an tahay inay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, siday ugu go'an tahay inay garab istaagaan in Soomaaliya ay dhisato ciidamadeeda qeybaheeda kala duwan. xaruntan lagu tababaro ciidanka xoogga oo la furay 30kii Sebtembar ee sanadkii tagay ayaa waxa hadda ku jira ciidamo tababarku u dhamaaday iyo kuwa hadda uu socdo. ciidamadan ayaa habka tababarkoodu aad uga duwan yahay hanaankii loo tababari jiray ciidamada sanadihii tagay, waxaana erayada awaamirta tababarkooda ka mid ah calanka, ciidda iyo heesa wadani ah. dhalinyarada halkan lagu tababarayo waxa ay ku muujinayaan sida uga go'an tahay in dalkooda ay u adeegaan. dable xoogga dalka Cabdisamed Maxamed Cabdiraxmaan ka tirsan ururka Gorgor ka tirsan huruntiisa saddexaad taliska xarunta Turkisom tababar ugu jiro. ma sha Allah waxaan u doortay ciidamada inaan ka mid noqdo gumeysiga iyo wadanka macnaha marxaladaha uu ku sugan yahay. dhiigga wax ka qaalisan ma laha, nafsadeeda ayaan dalkayga u hibeeyay. dhalinyaradaas waxaan u sheegayaa wadadan hadda ku taagana waa wada fiican inay soo raacaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo sumcaddooda iyo wadankooda inay macnaha kor u nooleystaan. anoo heli karo nolol ka fiican oo qutulyoon fiican leh oo iska hurdi karo oo iska seexan karo
markaan arkay wadamada waxa ka jira iyo ummadeena Soomaaliyeed waxa dhibka haysto ayaan waxaan u soo hibeeyay nafsadeedana u soo huray inaan macnaha gumeysiga dalka aan ka saarno waa kuliyad lagu talagalay in lagu tababaro ciidamada xoogga dalka ee loo diyaarinayo waddanka mustaqbalka dhow macallimiinta halkan casharada ka bixinaya waxa kamid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo dawladda Turkiga ay waddankeeda ku soo tababartay kuwaas oo sidaad u jeedaan maanta gudanaya waajibaadkoodii dalka